Salaamullaahi calaykum asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada YouTube janaalkeena. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo janaalka subscribe noo saar. Haddii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa. Maanta hadduu alla weyne raali ka noqdo waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha aad ka eegi karto hadduu dhalaankaaga yahay mid aad u oohin badan. Dhalaanka marka uu yar yahay gaar ahaan 3 bil ay ugu horeyso oohintiisa zaid ay u badan tahay. Ilmaha isku mid maaha. Haddaba inta aadan marka hore la xiriirin dhakhtar waxaad ka fiirisaa intaan oo qodob. Midda koowaad ee ugu horeyso waxay tahay hadduu dhalaanku yahay mid gaajeysan. Dhalaanka marka uu yar yahay ama bilooyinka ugu horeyso waxaa la doonayaa hooyada inay nuujiso 3 saacba mar. Waa uu badnaan 3 saac hal mar inay nuujiso. Hadduu intaa in ka badan uu gaajo ku joogo wuxuu sameynayaa oohin ziyaade ah. Waxyaabaha dhalaanka aad ka eegi karto ayay ka mid tahay inuu gaajeysan yahay. Qodobka labaad waxa ay tahay haddii cafaayada uu ku daaho oo muddo badan ay u xirnaato. Marka uu 3 bilo ugu horeyso uu ku jiro waa in cafaayada si isdaba joog ah uga bedesho. Hadduu ku daaho oo saacado badan ay u xirnaato waxay keeni kartaa oohin. Sidoo kale haddii cafaayada ay gubayso kale oo meesha xasaasiyad uu ku qabo oo ay ka soo baxeen shucaac yar oo gadgaduudan iyadana wuu la oon karaa. Waxaa jiro kareemo ama loogu talagalay oo aad u isticmaali karto si nabrahaas ay uga baaba'aan. Haddii cafaayada ay ku daahdo waxay ka mid tahay waxyaabaha uu la oonayo dhalaanka. Qodobka saddexaad waxa ay tahay midaan waxay dhacdaa inta badan habeenkii waa hadduu cabursan yahay. Hadduu hargab uu dareemayo oo sanka uu xiran yahay wuxuu sameynayaa habeenkii oo idil in uu ooyo. Waayo waxaa xirmaya sanka. Oohin ayuu ku sameynayaa reaction-kiisa. Haddii caburka uu dareemayo waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni kara in uu ooyo dhalaanka. Waxaa jiro habab kala duwan oo loo isticmaalo oo sanka dhalaanka lagu furo. Qodobka afaraad waxa uu yahay waana midka ugu badan oo sababa oohinta dhalaanka bilaha ugu horeeyo waa waxa loo yaqaan calool majiirka ama colic. Tan inta badan waxaa keenta maadaama dhalaanka uusan la qabsanin cabista caanaha ama nuujinta hooyada waxaa caloosha galaya hawo. Hawadaas ayaana keenaysa in uu oohin badan uu sameeyo dhalaanka. Mawduucan hadduu Allah yiraahdo video gooni ah ayaan uga hadli doonaa insha Allah. Qodobka shanaad waxa ay tahay haddii dhalaanka uu dareemayo kuleyl ziyaade ah. Hadduu wato fanaanado adag ama jaakadaha dhaxanta laga xirto jawiga iyo cimiladana ay tahay mid kulul waxa ay ka mid tahay waxyaabaha uu sameyn karo oohin zaid ah. Sidoo kale taas cagsigeeda haddii qabow zaid uu dareemayo ama dhaxan ama qarqariyo waxa sameynaya ayadana in uu ooyo gaar ahaan inta badan xilliga habeenkii ama meelaha jawigooda uu yahay qabowga zaidka ah. Oohintu uu sameynayo dhalaanka marka uu yar yahay ama xitaa sanadka ugu horeeyo ilaa uu hadal ka gaarayo in ilmaha uu ooyo waa mid muujinayso hadalkiisa. Waayo ma awoodo inuu yiraahdo hooyo waxaan ayaan dareemayaa ama waxaan ayaan doonayaa. Reaction-ka uu sameynayo ama qaabka uu wax u codsanayo ayaa ah in uu oohin sameeyo. Taas oo inta badan hooyooyinku ay fahmi karaan hadba markaas xaaladda uu ku jiro. Hooyada hadday dhowr cunug hore u soo dhashay way kala garan kartaa hadba dhalaankeeda marka sababta uu oonayo. Waa mid fahmi karta. Ugu dambeyn haddii dhalaankaaga aad ku aragto qandho zaid ah oo ka badan 2 maalin wax ka badan haddaad ku aragto inuu qandhaysan yahay si emergency ula xiriir dhakhtar. Waayo qandhada inta badan dhalaanka ay dareemaan inta ay yar yihiin waxay u gudbaysaa maskaxdiisa taas oo keeni karto in hadhow saameyn weyn ay ku yeelato maskaxda dhalaanka. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii videogan aad ka heshay like hanaga ilaawin.